maxkamad ku taalla Indonesia ayaa xukun cimriyaha kufrta ku riday macallin iskuul islaami ah oo lagu helay inuu kufsaday 13 gabdhood oo arday ah. Gabdhaha oo ay da'doodu u dhaxayso 12 jir ilaa 16 jir ayaa 8 kamid ah waxay qaadeen uur sida lagu ogaaday baaritaan uu sameeyay booliiska. Kiiskan ayaa muujinaya tacadiyada ka jira qaar kamid ah iskuulada hooyiga ah ee Indonesia kuwaas oo u badan xarumo lagu dhigo manhajka islaamiga. Garsooraha xukunka riday ayaa sheegay in macallinka oo lagu magacaabo Heri Wariwan uu gabdhaha ku qasbay galmo, qaarkoodna ay dhaawacyo xoogan ka soo gaareen falka guracan ee macallinkan uu ku kacay ayaa la ogaaday kadib markii bishii May ee sanadkii la soo dhaafay uu mid kamid ah waalidiinta caruurta shaaciyay in gabadhiisa ay uur leedahay. Dacwad oogayaasha ayaa doonayay in macallinka lagu xukumo dil toogasho ah ama in la dhufaano oo laga dilo dareenka raganimada maadaama dambiga uu galay uu yahay mid culus oo socday sanadihii u dhaxeeyay 2016 ilaa 2021. Dadka taageeray in xukun dila lagu rido macallinka waxaa kamid ah wasiirka ilaalinta xuquuqda caruurta ee Indonesia. sanadkii 2016 maxkamad ku taalla dalkaas ayaa xukun dila ku riday hogaamiyaha koox burcad ah oo kufsi iyo dil isugu daray gabar ardayad ahayd. kiiskaas oo dhaliyay in madaxweyne Joko Widodo uu ciqaab adag marsiiyo kuwa dhibaateeya caruurta. waxaa ciqaabta la jideeyay kamid ah xeer uu madaxweynaha saxiixay sanadkii 2020 oo dhigaya in la dhufaano oo dareenka raganimada la dhaafiyo kuwa faraxumeeya caruurta. inkastoo ay tallaabadaasi kasoo horjeesteen ururada u dooda xuquuqda aadanaha, xukuumadda Jakarta ayaa shaacisay in magdhow lacageedu ku dhow $6,000 ay siin doonto mid kasta oo kamid ah gabdhaha dhibanayaasha ah. Indonesia oo ah dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka ayaa waxaa ka dhisan kumanaan kun oo iskuulo islaami ah una badan kuwo ay ardaydu seexdaan. waxaa inta badan dhigta ardayda saboolka ah ee aan si kale u heli karin waxbarashada asaasiga ah.